ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة la tababarayo iyo macallimiintaba kaliya weynaynta iyo munaasabadda waxaa ka hadli doona mas'uuliyiinta laakiin waxaan rabaa rayaal oo tababarada bixinayay xeer ilaaliyaal qareeno waxaana qaadanayay booliis ujeedada koowaad oo xambaarsanaan waxay ahayd isdhexgalka dhammaan hay'adaha cadaaladda iyo kalsooni ku wada shaqayntooda sidaas darteed waxay xambaarsaneed qiimo lamaad oo ah aqoonta qiimo ka weyn tababarkaas oo ay qaateen saraakiishii soo shaqaysay waxaan dhihi karnaa wuxuu ahaay keed ay leeyihiin ciidanka booliiska iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah sargaalka aqoonta dhaxla qaasatan mihradda uu ku shaqeynayo sargaalka dhaxla wuxuu keed u yahay ummadda Soomaaliyeed sidaas darteed qiimo lamaad oo aad u weyn oo xambaarsanayeen ayaan aaminsannahay midka hadda soo socdana waxaan rajaynayaa sanadkan aan hadda ku jirno inuu noqdo midkaas mid lamid ah dhammaan mas'uuliyiinta meesha joogto waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin raakiista sarsare ciidamada booliska dhammaantood banaaniinta
kooxda heegan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa sidii laydin sheegay waa maalinta xafladda furitaanka tababarka lagu qaadanayay waxaan mataqaanaa rajaynaynaa tababarkan in aad looga faa'iidaysan doono horeyna waa loo soo qaatay haddana waa la dhammaystirayaa aqoontan lagama weynaado yar iyo weyn waxa waaye aqoonta waa u baahan yihiin qof kasta aqoon u baahan marka hay-adahan waa hay-adihii mataqaanaa laga doonayo inay cadaaladda sameeyaan haddaan aqoon loo lahayn waxa waaye waa dhibaata ka imaanayso boolisku waxa waaye saldhigga cadaaladda haddii ka xumaato saldhigga cadaaladda hadduu xumaado wax toosaayo ma lah sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa in tababarkan laga faa'iidaysan doono sida uu yahay waxaan mataqaanaa salaamayaa dhammaan booliska iyo madaxda qaranka garsoorka xildhibaanada labada gole labada xildhibaan golaha aqalka sare iyo xildhibaanada inta xafladda nagala soo qayb gashay dhammaan hoggaamada taliska qaybta guud برمدك بوليسكا يدراوشتا أكاديمية جنرال كاهية سوري إن هو بلده هيجن يباند موسيقى يدمان وربعينتا مرت الشرف تكلا هل كان كسوق بشيء إن دولة اليابان أو بحسي إن قرش كوب حي يدمان EU UN الدولة عاوية بوليسكا وحنا كان إذا كل سلام يا سلام تسلم السلام عليكم وحنا وقف هذه السنة فرصة توابرك قرشيسي وحكى لي كليا وجانك قرشاي توابردا بوليسكو حكوا شقيا أقونتي سأصر الله قاضو سيلو غارسيو إنه هو هذا برشة هذا هركي مريسو بوليسكو مرور باقونتيسو وحيلا صعطا أقونتا أمدا سلادة هاي وحان رجينا يا بوليسكو وحولي تاريخ دار إن كبدن تدباتا سنة هذا لا أسمي أو الله أقون صدي إن بوليسكو شقي لكن أنا وحنا مسنا هاي مركتاري ضد لو رعو إن بقول صار كله إيجاريسو وقت بوليسكو صار شقي سادرات وهويدي عندما وماشي عندما قرن كسوس كمان وماشي حرية يو دفاع ومدة نفط دوسة هورين وبدنو جسيالة أون حسوسنو وهنوقف هذه السنة فرصة إذا كبوليس كمال كسوجوجان بقبل دقمو وهنوقف بلينا يا مناسبة إن لحلاتك جون يكون جولاي oo si fiican ay uga baqateen amniga iyo xasiloonida dhammaan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska shaqada ay qabteen ciidaas iyo munaasabadaha soo maray iyo waqtigii ciida ciidanka boolisku waxay ku ciidayeen dariiqada ayagoo sugaya amniga naftooda u horaya in ummadoodu ay ku ciido nabad iyo xasilooni tani maanta waxay ka mid tahay tababarada la barayo jiilka cusub ee dhalinyarada oo noloshooda loo arbinayo inay noqdaan kuwii biri hogaamin lahaa ciidanka qaybihiisa kala duwan ayaan maanta fursad u helay inaan kaga faa'iideysano in tababaro joogto ah ciidanka booliska lagu sameeyo sidoo kale waxaa socda reform ama dib u habeyn ciidanka booliska horey loogu qaadayo waxqabadkiisa iyo qaabkiisa shaqo si loo casriyeeyo oo loo tuso inuu la jaan qaadi karo dhammaan ciidamada booliska adduunka sida ay u shaqeeyaan marka ugu horeysa waxaan salaamayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska taliya ku-xigeenka hogaamada qaybta guud fadhiyada madaxa bannaan ee ciidanka booliska akademiyada kooxda heegan oo hayso qiiro badan oo aad qalbigayga u taabtay halkaa ka soo jeediyey kooxda baambeyda muusikada oo iyagana aad maanta oo dhan
aad noo qiiraysiiyey tiimka wasaaradda amniga ka socda garsoorka xildhibaanada labada gole warbaahinta sharafta leh oo mar walba diyaar u ah inay gudbiyaan waxqabadka booliska iyo dowladda nabad iyo nolol waxaan kaloo salaamayaa marti sharafta kala duwan oo ugu horeeyaan UNB-da dowladda Japan ciddi ka socota iyo EU-da iyo AMISOM intaasoo dhan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu AMISOM Police salaan kadib waxaad ogsoon tihiin maantay inay tahay maalin taariikhi ah oo aan rabno inaan u istaagno inaan horumarino ciidanka booliska tayadooda waxaan ogsoonnahay inaan maanta u nimi inaan furno barnaamijkan ah macallimiinta oo rabo in tababar ay u jeediyaan guud ahaan dalkoo dhan iyo leeli sarkaal arrintan waxay kor u qaadaysaa ahmiyadda ay dowladda ka leedahay in la horumariyo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ogsoonnahay haddii ay tababarkan qaataan in ay u gudbinayaan gobollada kale ee dalka waxaan leeyahay maantay waa inaad waxaad barataan u gudbisaan booliska intiisa kale waxaan aad u ammaanayaa booliska Soomaaliyeed oo taariikh dheer leh oo aan ogsoonnahay inuu ka soo bilaabo 1943 ilaa inta u dhaxaysay 2017 ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed waxay u hayeen howl aad u muhiimsan waxay ka qayb qaateen dib-u-dhiska dalka waxaan ogsoonnahay daaraha quruxda badan ee caasimadda iyo gobollada kale ka muuqanaya inay iyaga dhiseen taliya waxaan ogsoonnahay xilliga hadda la joogo oo xaalad aad u adag ah in ay habeen iyo maalin u taagan yihiin sugidda amniga shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka mas'uuliyad ahaan wasaarad amni ammaan baa mudan tihiin ilaahay agtiisana waa ka helaysaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna wax badan ayay niyeysaa arrinta qabateen waxaan ogsoonnahay mar walba ay shacabka Soomaaliyeed fantasiya ku jiraan oo ciidayaan oo soomayaan oo wax baranayaan oo ay shaqeynayaan oo waxa weeye howlo badan ay wataan iyagu waxay u taagan yihiin waajibaadka ah in ay amnigooda sugaan iyagu ma ciidaan ma harsadaan ma seexdaan waxaan leeyahay aad baa u ammaanantihiin Especially